Assalaamu calaykum soo dhawaada asxaabta ku xiran janaalka Ekaysom kuna soo dhawaada qiso ajiib ah balse inta aynan bilaabin muuqaalkeena fadlan haddaad nagu cusub tahay subscribe dheggan belalkana furo hooyo iyo wiilkeeda baariga waxaa jiri jirtay haweeney garaaci jirtay wiilkeeda maalin walba waxayna ku garaaci jirtay dadka hortooda iyaga oo waliba daawanaya laakiinse wiilku ma ahayn mid ka ooya ama ka awda garaacida ay hooyadiis garacdo weligiisna iga daa ma oran erey hunna kuma soo celin jirin kamana carari jirin haddaba marka ay sanado badan ka soo wareegatay iyadoo sidii dadka hortooda uga tumayso iyo isagoo aan weligiis ka ooyin kana ilmeyn garaacida hooyadiis oo aynkan ku sugan ayaa wiilkii weynaaday oo garkiina u soo baxay maalin maalmaha ka mid ah ayay garaacday markaasuu ooyay ilaa ay ilmada garkiisa ka buuxisay haddaba marka ay hooyadiis ka yar fogaatay bay dadkii intay la yaabeen ku soo hoomeen waxayna weydiiyeen maxaa maanta ka oohiyey iyada oo aan ognahay inaad intaas sano dhan u soo dulqaadatay garaacidan oo kale waa maxay sababta ka ilmaysiisay wuxuuna ku jawaabay isaga oo oohintiisa sii wata sideen u ilmeyn waayey iyada oo aan dareemay inay gacanta hooyaday daciiftay sideen u ooyi waayey iyada oo albaab ka mid ah albaabada jannada ku dhawaaday inuu iga sii hirmo ilaahow waxaan ku weydiisanaynaa raalli ahaanshahaaga iyo waalidka oo raalli naga noqdo